diiweyne Douglas Johnson oo Soomaalidana u taqaano The Rock waxa uu dhashay 2 May 1972 waa actor soo saare waxa uu haystaa labada dhalasho Mareykan iyo Canada laakiin nolosha waxa uu ka soo maray marxalado adag 14 jirkiisii waalidkiisii waxay iibiyeen gurigooda sabab la xiriira inay waayeen lacagihii ay kirada iyo korontada iyo waxyaabaha la midka ay ku bixinayeen 16 jirkiisii 9 ilaa 8 jeer ayaa la xiray waxay noloshiisa isfurfurtay kadib markii uu ku biiray jaamacadda Miami waxaana ka mid noqday tiim ka dhisan jaamacadda oo ciyaarta rugbyda waxaana 1991 ku guuleystay International Champion of Miami waxaana caan ka noqday dhammaan wadanka laakiin dhaawacyada badan dartood ayuu kulamo badan u sheegay kadibna waxa booskiisa lagu bedelay Warren Sapp waxa uu jaamacadda ka qalin jibiyay oo ka baxay 1995 waxaana ku biiray naadiga Calgary Stampers oo ka ciyaarta Canada waxaana ku sugnaa 2 sano inta kadib waxa soo gabagaboobay riyadiisii ciyaarista kubadda waxaana ku dhacay waxa loo yaqaan depression ama niyad asigoo ka hadlay arintaas diiweyne waxa uu yiri ma rabin inaan wax badan waayo laakiin waxaan bilaabay inaan maalin walba kaliya iska ooyo laakiin diiweyne markuu albaabkaas ka xirmay waxa uu furmay albaab kale oo waxa uu ku soo biiray caalamka musaaracada kaas oo ay soo ciyaari jireen abuwihiisa iyo aabihiisa Johnson ciyaarihiisii ugu horeeyay waxa uu kasbaday 2,000 oo taageero laakiin isbuuc kadib waxa soo gaaray dhaawac dhanka jilibka ah waxa uu ringaha ka maqnaa muddo bil ah marka uu soo laabtay waxa uu bilaabay inuu wax badan iska bedelo taas oo inuu naftiisa kalsooni badan siiyo waxaan bilaabay inaan nafteyda ranta u tilmaamo inaan aniga inaan wax walba qaban karo diiweyne waxa uu ku guuleystay 17 suun 10 kamid ay yihiin WWE World Champion diiweyne waxa uu caan ka noqday ringaha dhexdiisa waxaana ka mid noqday ragga looga jecel yahay taasina waxay u furtay albaab kale oo ah jiliinka filimada waxa uu filimkiisii ugu horeeyay ka soo muuqday 2002 waxaana filimka Scrubbing King waxaana ka yaabsaday dunida marka uu noqday aktarkii ugu horeeyay lacagta ugu badan hela jiliinkiisii ugu horeeyay waxaana helay 5.5 milyan mase 5.5 milyan oo dollar diiweyne Johnson The Rock waxa uu noqday aktarka lacagta ugu badan ka qaata shirkadda filimada ee Hollywoodka sanadkii 2016 waxaana qaataa 46 milyan oo dollar wiilkii ka niyad jabay ciyaarista kubadda maanta waa aktarka ugu lacagta badan shirkadda Hollywoodka sidoo kale waxa uu ka mid yahay 100 qof ee ugu saameynta badan dunida diiweyne Johnson The Rock waxa uu jilay filimo badan oo dunida caanka ah sida Welcome to the Jungle, Walking Tall, Faster, Be Cool, The Gambler, The Other Guy, Faster, Fast and Furious 5, Fast and Furious 6, Fast and Furious 7 iyo kuwo kale oo badan mar uu ka hadlay guusha uu gaaray waxa uu yiri guushu maan wax lagu helo hal habeen waa inaad maalin walba heshaa tijaabo wanaagsan kadib maalinta xigta waa inaad maalin walba talaabo hore u qaadaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay like haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo calaamada subscribe ka taabanayo mahadsanid